laba nin oo xiran suumanka qarxa ayaa isku dayay inay galaan ilinka hore ee Hotel Jazeera kuwaasi oo markii dambe ku dhintay kadib markii ay wada qarxeen iyagii iyo gaari meesha ugu diyaarsanaa oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ciidamada ammaanka ayaa rasaas badan furay iyaga oo markii dambe ku mashquulay daminta gaariga qarxay oo holcayay ma aysan ogeyn inuu meesha yiilay gaari kale oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay kaasi oo saacad kadib qarxay isla markaasina ay ku dhinteen dhowr ka tirsan ciidamada dawladda oo ay ka mid ahaayeen laba taliyayaasha saldhigyada booliska Muqdisho muddo yar kadib waxa qarxay gaari kale oo hore loo baaray kaasi oo markii hore wax laga waayay qaraxanina dad kale ayaa ku dhintay taasi oo kordhisay tirada dhimashada wadarta guud ee qaraxyada ku dhimatay waxa ay gaarayaan 11 qof halka 40 kalena ay ku dhaawacmeen gaadiidka gargaarka degdega ee bukaan roorka loo yaqaan ayaa iyagu qaatay kaalintooda wanaagsan iyagoo daqiiqado yar gudahood ku daadgureeyay dadkii dhaawacmay oo isbitaalada la dhigay balse dibka soo food saaray shaqaalaha caafimaadka ayaa ahaa sidii dhiig loogu heli lahaa dhaawacyada dhiig baxay iyadoo uusan dalka lahayn bangi dhiig tanina waxa ay keentay in madaxda dawladda qaarkood ay dhiig ku yawahaan qaraxyada iyo weerarada kuwan oo kala ah ma ahan kuwo mar dhow dhamaan doona balse waxa la isweydiinayaa ilaa heerka diyaar loo yahay la tacaalista masiibooyinka kuwan oo kala ah gaar ahaan isku dubaridka howlaha gurmadka halka hadda ay jirto isbarbaryac fara badan